maalmihii u dambeysay ama weegii u dambeysay waxaa ka socday waddanka South Africa dhibaato loo geysanaya dadka Afrikaanka ku nool waddanka South Africa. haddaba dadka Afrikaanka ayaa waxay la yaabeen dhibaatada aadka u foosha xun leh ee loo geysanaya dadka ku dhaqan waddanka South Africa ee ah Afrikaanka iyaga laftigoodu. markaasi dad badan oo asalkoodu ka soo jeedo wadamada Afrika oo ay kamid yihiin sida Soomaalida, Etoobiyaanka, Nigerianka iyo wadamada sida Uganda iyo wadamo kale fara badan ayaa maanta waxay isku yimaadeen mudaharaad kaga soo horjeeda arrintaasi. mudaharaadkaasna oo ka dhacay bartamaha caasimadda Oslo ee dalka Norway. haddaba dadkaasi ayaa socod ka bilaabay meesha loo yaqaan train stationka ama centerka magaalada Oslo. socodkaasina waxay ku tagayeen meesha wasaaradda arrimaha dibadda iyo guriga baarlamaanka ee waddanka Norway. haddaba socdaalkaas intii lagu jiray ayaa waxay dadku ku qaylinayeen dooni mayna waxyaabaha ka dhacaya South Africa. dadka Afrikaankuna waa dad walaalaa, waxayna siteen boodhar ay ku qoran yihiin African United ama dadka Afrikaanku waa walaalo, hala joojiyo dhibaatada lagu hayo dadka Afrikaanka iyo waxyaabo lamida. haddaba dadkaasi hadalladoodii waxaa ka mid ah marka dariiqa marayeen ay ku sii jeedeen wasaaradda arrimaha dibadda sidan, waxayna ku qaylinayeen hadalla ay ka mid yihiin sidan: Stop! South Africans! Stop killing your brothers! Burning alive is a barbaric act! South Africans must stop! Stop killing! We are African! No to violence in Johannesburg! haddaba dadka Afrikaanka ayaa waxay socod ku tageen meesha looga taliyo waddanka Norway ahna wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway. haddaba markay dadkaasi yimaadeen albaabka hore wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku qaylinayeen hadalla ay ka mid yihiin hadallada sidan: No, please don't repeat. We are now assembled in front of the Norwegian Foreign Ministry. We have come here today as Africans because we feel aggrieved. We reject all forms of violence against Africans, against black people in South Africa. We Africans have survived all forms of violence, from slavery to colonialism to dictators to terrorist groups, and we will not surrender to violence on the streets of South Africa. By coming here today, it's a testimony of that rejection and denunciation of violence. Thank you, and stay united as Africans wherever you are. Stop the killing of students in Kenya. We Africans say Oslo. Stand against xenophobia. In South Africa. We are united. We are strong. We are powerful. We are indomitable. We reject. We accuse the South African government of violence against Africans. We reject violence against Ethiopian Christians. We reject violence
against Somalians. We reject violence against Nigerians. haddaba dadkii halkaa joogay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Norway horteeda waxaa ka mid ahaa Mahad Cabdulle oo loo yaqaano Mahad Bashar waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaan taaganahay hadda wasaaradda wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Norway annagoo u nimid marka inaan ka mudaharaadno dhibaatada lagu hayo dadka madow ee waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Sinobia oo dad badan oo Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed ay degan yihiin ku nool yihiin runtii aad baan ugu xunnahay sidaa daraaddeed ayaanu halkan iskugu nimid inaan ku midowno inaanu ka hortagno ama aan cambaarayno dhibaatada Soomaalida lagu hayo gaar ahaan South Africa oo runtii aan aad iyo aad ugu xunnahay dad badan oo Afrikaan oo halkan iskugu yimid baa jira oo ku midoobay inay maanta oo Jimco ah oo maalin shaqo ah waliba inay halkan iskugu yimaadaan 100,000 oo ajnabi ah Soomaali ku jirto Ethiopian Eritrea South African waliba anagoo markaa cambaaraynayna dhibta lagu hayo walaalaheena madow ee ku nool waddanka South Africa anagoo ogeyn 78 waddanka Soomaaliya inuu awood iyo quwadiisa isugu geeyay inuu ka hortago canaasiirtii caddaanka ah ee markaa gumaysan jiray South Africa hadduu maanta Mandela noolaan lahaa waxaan aaminsanahay in halkaasi ay runtii walwal iyo walaac ka muujin lahaa uu la yaabi lahaa waxaan ay waxaashnimada South Africaanku ay ku dhaqmayaan dadka ay ku leynayaan halka waxaanu cambaaraynaynaa iyaguna al-shabaab dhibtay ka geystaan waddankii Soomaaliya oo aynu ognahay lamida waxaashnimada ay halka ka geystaan waxaanu iyaguna cambaaraynaynaa IS oo iyaguna dad muslimiina iyo dad waliba Kristana iyaguna ku laayay Liibiya iyo adduunkana sidaas oo kale ugu laayay gaar ahaan maanta waxaan halkan u taaganahay inaan ka hortagno waxaashnimada South Africaanku gaar ahaan King boqorkan iyo waliba Zulu madaxweynahoodu uu ku raacsan yahay hadda dhibaatada ka taagan South Africa aad baan u cambaaraynaynaa annagoo joogna wasaaradda arrimaha dibadda magacayguna waa Mahad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba dadka Afrikaanka oo ay ka mid yihiin Soomaalida Nigerianka iyo Ethiopianka aad uga xun dhibaatada lagu hayo dadka ku nool waddanka South Africa ayaa waxay mar labaad dib ugu soo noqdeen meesha looga taliyo waddanka Norway baarlamaanka dalka Norway waxaana dadkaasi ku soo aruureen albaabka hore baarlamaanka waddanka Norway waxayna ku qeylinayeen hadallo ka dhana dawladda South Africa iyo waxyaabaha kula dhaqmayso dadka Afrikaanka ku dhaqan waddanka South Africa haddaba dadkaasi waxay cambaareen dusha uga tuureen madaxweynaha dalka South Africa iyo ninka boqorka ah oo kaasoo ku dhawaaqay dadka ajnabiga in la laayo waddankan xoog looga saaro haddaba dadkaasi waxay ku qeylinayeen ay lahaayeen Afrika ha midowdo waxayna aad iyo aad uga xumaadeen dhibaatada lagu hayo walaalahooda Afrikaanka ku dhaqan waddanka South Africa iyagoo sheegaya in dawladda South Africa ay dadkaasi dayacday ayna u fidinin wixii ay uga baahnaayeen waayo waxaa ka mas'uula dadkaasi dawladda waddanka South Africa haddaba halkaasina waxaa kula kulmay albaabka hore baarlamaanka waddanka Norway gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Luul Kulmiye waxaana hadalladeedii ka mid ahaa sida tan magacaygu waxa waaye Luul Xasan Kulmiye waxaan ahay reer Norway waxaan ka socdaa Global Somali Diaspora waxaan wada shaqayn wada sameynay oo isla soconaa wadamo walaalo Afrika Ethiopia Nigeria, Uganda, Cameroon, Somalia وإسلا وذا صعنا سوت إسلا صعنا وحكي لما أها South Africa وحنا ومدينا لجو سمعنا يو ذات نلاش لجو جبيو Somali ده أركتين أتكحن وستين كل جود معها ولا لك الأفريقيان أيا جنفت الكل سيد لجو سمعنا يا وحكو سمعنا يا وحكو سيدرن وأفريقيان هذانا والبعد بيجي جمستو يجري نلعب بنجو سمعنا يا أو نسكع عبينينا هذانا نكى ولا لك aha oo shalay aad taageeraysay inuu maanta ku istaagi waayo waxa wax laga xumaado oo wax laga dhiidhiyo oo maaragtay damiirku taabanayo dad badan waxay ayagu weydiiyeen dhahan oo dadka Soomaaliya isku dilaya ama lagu dilaya ama ku dhimanaya ayaga looma dhiidhiyo miya ayaga looma istaaga miya waxa kaliya loogu istaaga dadka shisheeyuhu ay taabtaan
Soomaalidu waxay heshiisaa oo kaliya ama isu raacdaa marka shisheeye uu soo taabto annaguna aan isdilin ani ma qabataas markasta waxa jiro ummad Soomaaliyeed oo u heelan oo markasta ka hadasha oo markasta ka qaylisa oo markasta wax ka qorta laakiin dhibka jira wuxuu yahay waxa loo jeedaa oo naga badan inta kala goynaysa inta rabta midka kale inay isku dirto marka waxaan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan inaad walaalayaal laabta isu furtaan inaad midowdaan inaan israacno way Soomaali ahaan markaan isku raacno haddana Afrika ahaan aan isu raacno kadib baan adduunka la qabsan karnaa marka maanta ujeedada gaarka ah ee sukaya keentay ee aan usla uga soo baxno guryaheeni oo halkan aan uga qaylinayno waxay tahay dunida caalamka inay aragto waxa dadka ummadeena lagu sameeynayo walaalaheena Soomaaliyeed waxa lagu sameeynayo South Africa lagu gubayo qof dhan oo nool lagu gubayo wali ma aragtay South Africa lagu arkay ujeedku wax kale ma aha in aan sameeyno wacyigelin buuxda muuqasho inaan ka dhiidhinayno adduunka u baahan yahay dawladda South Africa waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda inay ogaato shacabkeeda ay u taliso in afka kaliya ka dhihin Soomaalida ayaa ma aragtay lacag bay haystaan iyo dadkii bay dhex tageen dawlad walba dadkeeda waa in iyada u taliso waa wadan degan waa wadan maamul leh waxa way suumo madaxweynahooda ah waa inuu wadankiisa u taliyo waa inuu dadkiisa qabtaa